ninka walaalkeenna saddexda qafoo istaagneed laba sidii liin sheegay faataxay horaan qaateen saddexda kale ninkan umay ku dhacday ma aha maanta ugaas inuu xun yahay doctor xasan uu xun yahay laakiin nasiibka ayaa ninkan ku dhacay soo ma laakiin haddeen qalaafkii iyo ninkii walaalkeen aan xallinin nimankii kale walaalaheen anaykana aan u nuglaanin ninkaana aan ku caanashubanin sidii shalay faataxada loogu maro wax baa noogeega أنا وعائلتي will extend an olive branch to our brother Ugas. He's a very eligible man. He's a very refined man. He's a good leader. But in any decision that is to be made, ninka un bay talada ku dhacleen ninkaasna kama noogayna waa ku noqonaynaa walaaltinimo iyo talnimo aan ka raadinaynaa meeshii rixinkiisii iyo talkiisii ay ku faatax marteen inuu ka soo qayb noqdo ayaan leenahay midda dhacda nin sheego maxaa systemka badi hadduu ninkan ugaas shalay faataxadana qaatay oo maanta ninkii fay badbaada u yahay haddana aas maanta aas u sabri lahay waxaa waaye dadkaas dhibkaas waxaa keenay dadka mas-uuliyiintaas alla ka dhigay waktiga asagahay oo shaygii xal u keeni lahay qof walba u keeni lahay ama dadkii kursi rabay xal u keeni lahay haddeenba xalka laga taleen dhibka soo ma aniga ninkan walaalkeen waxaan u leenahay iyo dadka mas-uuliyiinta aniga naftigeeda iskama bixinaaye meeshiin ka gaabanina waan ka raalahanaysiin wixii maanta aad naga rajaynaysiin oo noo suurtagelina aad baa noogu raalaynaysiin kaamil ilaha laga helaa laakiin waxaan leenahay aan ka fiirsanna nin allaahi ninkii qabiilka badbaadiya ama taladiisa iyo ummaddiisii meeshii ay ku caanashubteen taladiisa soo raaca in mas-uuliyiin ahaan aan ka tashanno oo dadka ayaga aan meelayna be it in the national government ama the county government asaga naftigeeda waa dowlad inaan ka tashanno unbaa wanaagsan soo ma khudbadii shalay walaalkay ugaas kelmadoo yar oo facnina ka yara dareemay ugaas horta waa nin shakhsi saan u aqaan nin faacan oo qaymo leh waay laakiin dhaqankii xoogoo soomaalidii ujeer iyo asaga america ka imaaday waa isira faham waaye laakiin nin qaymo badan ma leh oo madax laga dhigin lahay waa nin iimaan leh waa nin wanaag doonaya laakiin ummaddii hadduu imaaday dhaqankeedii iyo asi dhaqankiisa isqaban waay intaas kalex waay ugaas xumaan ma qabo anisaan aaminsanahay laakiin dadaa ku dhex jiro oo yeelaya ood u malaynaa inay run u sheegayeen marka ugaas maalinka xanuun badneed ma laha maalintii la reebaya maxamed cabdi laga reebaya maalinka xanuun badneed ma laha maalintaan 7 beri kale qaadatay saas meen inay intaan qaadato waxa way liidinaan madaxda maanta joogta ka muuqato walaalkay Rashiid mas'uulkaas si fiican u qaado maadaama maanta MPga axmed baashan waa aragnay kelmadan markaan ugaas ka shalay ka dhawaaq waxa way wuxuu dhahay ninkii khilaafkeen inuu kursi hela waa cadda kelmad fiican meen nasiib lagu yaabo qofka laakiin khilaaf lagu guuleysto sanana masana waqti gaaban in lagu helo marka faa'iidnimadan xooggeeyno 15 sano 2013 waxa la dhahay faa'iido football macallijir laakiin waa isku fuuqsaday ma soo marka qabiilaan iska dhigno aan ismuujino ugaas ma naga fogo haddii aan helno odayaalkii dooni lahay suldaanka iyo ugaasiinta shaqadii 15 biri waa ka nasateen hadda soo gala madaxda maanta joogta iyo odayaalka gala ugaas xal laga muwaynaysan aaminsanahay mid kale oo dheeraadka markaan sheegay waxa waaye xasan wehliye ani saaxiib aan waraaban waan qaraaban waan ninka horta gabanimada soo qaaday kan badi ugu horeey 2 sano laga joogo malayna laakiin war waqti dhaxdana oo maxamed cabdi markii la bixi cabsi asoo qabo xogo ma qaf kala soo qaadana niyo yar qabta ana asoo cabsana dibka maanta faa'iido yeel ama ninkan dhalinyarada lagu weeqa ma jir dhalinyaro badan la weeqay ana li weeqay ugaas la weeqay ina asal la weeqo la cabsada kulli hada wax ay suuqayeen odayalka ay suuqeeray gash laakiin runtii haddii aan anaga garab istaagno kuri waan haysanaa haddii ay dhab naga tahay waxaan isku qancino waan haysanaa madaxtinimo isku qancino oo na wala deeqda waan haysanaa hadday lilaahi keen iyo hadday madaxda hesho intaas ay iga daardaarana waxaan u rabnaa kursiga
intaanoo dhalinyaro governor way noqon karaan, intaanoo gabdho governor way noqon karaan, laakiin mas-uulka waxaan saarnay sultanate intay wax noo raadiyaan. maalinta 28ka Thursday 20th October shirka waan joogo, odayaashana halkay ka dhawaajiyeen, Mr. Petrol iyo principal chief, yes, Haji Dayib waxaan Petrol u leeyahay waxaa waaye maraan iskugu imaan xafiiska PC-ga Gaarisa asagoo intaan ka yar anina ka yar, agtiisaan fariistay uu isoo fiiriyay wuxuu yidhi abbay nabad miya? Nabadaan dheh. wuxuu yidhi waxaa la dhahaa kibriit. kibriidaa la dhahaa. markaan anina waxaan dhahay abbay ebo anina petrolaa la dhahaa. markaan aan kala fogaanin saad daraaddeeda asagana kibriid anina petrol aan iskugu yeernaa anaga. markaan arrimaheena ma hagaagayin, horena uma kacayin intaad qof naga dhirfanyo oo heebadan xagga ka jiro. odayaalna uma tegi karno ama qabiilada kale uma tegi karna anagoo faay oo laba farood muu tegi karnaa. ugaas wuuna la dhashay, walaalkan waaye. ani waa la fariistay ugaas, waxaan dhegaysa wiil walaalo, intaan ani mari haddaan kuu sheego faay dhexdiisa hadduu xisbiya waa ka bixi lahaa. unfortunately faay is not a political party. haddaad bannaan u baxdid haddaa kadhib magacii ku wataa ee labadiina islama helaysiina tashada isla tashadaane. ugaas ma fogo runtii. I spoke with him, many of you spoke with him. markaan waayo wiilkaas annagaa dhalnay. Governor Xasan weeliye wuu la dhashay, annagoo dhan baa nala dhashay. nin bannaanka gabar hadday masirta intay aadaa ciddooday aadaa soo maha, waa la soo celiyaa, hooyadaa soo celisa ama walaalkeedaa soo celiyo. ugaasaan doonna aan soo celino, keligiisna maaha waa badan yahay, gudaha la soo geliyo. wuxuu tabanayana ha laga dhagaysto. boqorintu way maqleen, laakiin annaga dadka qaar oo halkan jooga weli ma maqlin. ani waxaan joogay maalintii verdict la gaarayay Burundi aan joogay. social media-ga markii maalinta dambe fiili waxay gashay meesha ma la waashay mise maxaa dhacay. tabanaa inta fakane kuwa kala press conference guestas ka subini governorgii la soo qaaday oo verdict yahay gaaras u fakana. marka waxaan dhahay wajeerta ma yeela jaha wareerta maxaa ku dhacay cid faay maxaa ku dhacay. laakiin siyaasadaaba iska saase. maalintii 2017 ugaasiinta ay cusubnaayeen oo Sheekh Ibraahim aan iskugu tagnay beertiisa oo verdict la gaaray oo ugaas Sheekh la soo qaaday, aniga applicant tarbajaanahay, ninkan Idrisa la soo qaaday maalintaas. dadka la soo qaaday farax ugaasiinta ay garabta taagneen, annagii kalena la soo qaadin dud unaan ka bilaabay. markaan hala yaabina ugaas walaalkay orodkiis weli ku maqan yahan u malaya kolba waa soo qabo faataxadan uu maray ilaahay inuu soo qaboojiyo. maxaa dhis siyaasada waa dhib badan tahay markaad wax filanaysa way iska dhib badan tahay, laakiin waxaan u maleeyaa isagana waa qof oo iimaan leh uu soo laaban doonaan u maleeyaa. markaan waxbana hala yaabin siyaasada waa dhib badan tahay. ani maxamed Turkiya hal maalin aan isla fadhin or say ku dhacday say ahayd siin u leen maalintii aan ku dhamaatay. midda kale Xasan adina ilaahay ku barakeeyo. bahashu waa culays badan tahay, siyaasada waa dhib badan tahay, uqdad badan tahay. ninkii hataa kula jiro ka maqan waxaad qobi inaad isku ridahay waana kula jira qofka ogow, laakiin bartiisa ma arkaysid. marka nin walba u sabar. ani ugaasiinta iyo suldaanka raali ahaada markin dhagaysti hadallo xun oo wanaagsaneen ka imaaday. 2017 markii la soo qaaday ugaas dadkii koogi guri uu campaign ku gala siiyay Xasan wiilu adeer uu yahay uu ahay oo kaalmo u siiyo lacag ka qaadayni. dadkii wanaagaas ay isu qabeen, adina wanaagan inaad dadku u qabtaa fiican soo saas ma. midda kale waxaan la hadli rahaa professionals, dadkan dad dhalinyaro ah, dad aan waalid u wada nahnay meeshan joogo soo saas ma.
awal waxaa dhihi jireen MB-ga waxaa keena magafayaal gafanayaasha magafayaalaa keene maanta idinkaa liin baahan yihiin magafayaasha waa kala carreen idinka soo gala gudaha waa carreen magafayaasha ma joogaan ma ogtiin saas mise ma ogidin nafaaska hadda waxaa iskale dhalinyarada from 49 downwards markaan safartan waxaad suubisiin aan fiirinayna gabar waxay toogtaa waxaa shukaansada ku nin hal bay kala baxda kursigan gabananimada waa hal koomis waa laba hal waa sooma arrinta iidaheed waxaan u dhiibinay dadkii madaxda aheed oo 14 ugaas iyo suldaankii aan u dhiibinay walaayada waa wala dhiibanay gabdhaheennii oo dhammaalay u yeereen waa in ku kabanaydeen dhalinyaradeenii oo dhammaalay u yeereen waa in ku kabanaydeen odayaalkii culumowdiinkii kulli waa loo yeeray annaka siyaasiyiinta ah oo hadda ku jirno kulli waa noola wala yeeray MCA la ahaadeen MBA la ahaadeen kulli waa noola wala yeeray waxaana ku dhahnay wax allaahi wixii soo bixisay waa in ku kabana garna waxaa la dhahay laba qaf kama qoshtiis mid unbaayun la goy marka haddii aan nimanka ay kahay aan talada u dhiibin oo madaxda hay hal nin hay noo soo bixiyeen halka ninkaayna waxaas noqday xasan wehliye annakana markii iideed ka damba waxaan dhahnay ninka asaga hay ayaa la taaganahay ilaa daqiiqada ugu dambays maxaa yeelay saddex oo wiil oo walaalo oo isla dhalatay oo aabbo isku dhalayayaan saddexda iideed hadda halkan laga soo bixiyay inaan halkan aan la garab istaagna ayaan go'aansanay aniga iyo Rashiid Karshay my good friend oo meeshan fadhiya ayaa la soo qaaday jagada MCA-ga Honorable Rashiid Qasim MP Governor waxaa loo soo qaaday our brother ugaas nidaamkii maalintii ayada ahayd unba haddana maanta lagu socdaa inkastoo ani kaligay baaloodka aan aadin haddana waxaan aaminsan yahay tolka nidaam oo hogaaminaya hadday jirin in talada ay halaabaysa aniga waxaan qabaa ninka ugaasiinta ay noo soo qaadeen oo walaalkeenne garab ayaas nooga baahan yahay waa inaan taageerno waa inaan support garayno and we have to deliver this seat waxaa kaloo la rabaa in la ogaada in magaalada Wajeer nala degan yahay kursigan waxaa u halgami yahay Wajir West Wajir North wax baa ka soo yaraan maqlahayna Wajir South na for the second time they are contesting for the same position ana waxay ila tahay khilaafka yar oo anaga naga dhaxeeya in si hoose aan u damino aan isu imaadna in the next 2 weeks reconciliation aan shaqo ka dhigano the fact that all these people gathered here is an indication that we accepted the verdict marka ani waxay ila tahay meesha juhdiga in la saara ay tahay after this gathering is to look for our brother yesterday I attended his meeting I was trying to tell him that you are loved too you are a brother you are welcome lakini when it comes to this matter ma la kala qaybini karo waxaan u malaynayaa bilihii yaraay oo kursiga maxaa la dhahaa walaalkeen Maxamed Cabdi Maxamuud uu ka yara baxay dadka MCA-yaasha shaqaalaha county-ga how the budget was allocated all that markii aad fiiriso waxaad isdhehaysaa wixii inaad adiga maamusho ama ay ku roon tahay annaka madaxdii haddaanan intaa soo jeeraan fadhiisanay arrimahan waa ka fadhiisanay marka aan fadhiisanaynina sanadka hore iyo sanadkan marka liisa barbar dhiga waxaan maaragtay inaan maaragtay sanadkan aan ka fiicanna ayaan u malaynayna waxaan fadhiisanay Nairobi meeshaas Savana annaka iyo MP-yaasha aabahay Cabdishakuur su-aasha aas weydii aan ku weydiiyey saddexda nin oo isla taagan waxay dhaheen sanadkan ninka la soo bixiyey ayaan daadihinaynaa muruna naga imaade ma markii faaye taariikh 28 loo yeeray xasan wahliye
أنا قعنت كفير وعندي حسنو أنك فاي وكوكني لكن وحي ما أنت كبل لاود وحي ما أنت كبل لاود نكس فاي سوق هذا أنا دبكعينا بعدين السوق هذا خير الله سي أوريرو فرح مركي أنت ماركتي هبينكي أصحاب بري مركي بدك اللي سوق هذا دونا حسن وأويرنا أنك وهنقول دهني تول كادي قرابة هذه هدانا بلان أنقلني بلان أنقلني وحوايا نكل السوق هذا إن أنقعنت قبل دونا وندادهين دون حسن وأنا أقبلي إن أسمانته هذه أم أوجاز أسمشان فدين لهاي أما دكتور حسن أسمشان فدين لهاي حسن ما أنت مشان فدين لهاي تعاس وحاوس سببه بعد كتير هرو مركا يصبح لي قعنت أنقبلني تيلا بعده هندل محمد عبد الله سوق هذا هندل مركي سوق هذا قعنت أنقبلنا وحان ربنا حجرة المسلمون تتكافؤ دماؤهم رجع مسلمين تا دي جود وسمين مركي لدها قبيل كان سيدا كل توا ويل كفي عمله فاي مركي هرتاجناي ودار دوان هرتاجناي وحان ده ورياضة ويليسان ويل أن عدان هن مجري عدان أن ماركتي كور أرنتان أن دري كور لورر وأعود ورداتانية تولك وحان ربنا markii maaragtay ayada badan oo quraan ka mid ah nabi maxamed u kula tuxal dhahay sabr adiga nabi maxamed oo sabr sida ay ulul azmi u sabreen wa tawaasaw bis sabri wa tawaasaw bil haqq atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tadruna al kitab afala taqilun wasta'inu bis sabri was salat munaqle sabarka waa wax maaragtay si sheegay aniga hadda sagaal wiilaa ila soo istaagtay cid hoos anaka laga helay soo bixi فاتحة الله مري وأنا أقبلين فاتحة ذاتك الله مري وحكمته نين ماشان فدي أو تشيف أوفيسار سيولو أسكيلي ذاتك فاتحة الله مري وحكمته جبر MCA أو إذا فاتحة إلهي أصلا من التدسي ذاتك فاتحة الله مري وحكمته نين مركي إذا شغلان هاي حتى من مارك شغلك الهايست أو شغلك شغينا وحان ربنا مارك تجر سيدس إيش لبنان إسكلام خصوصيس جر نينكم بايك خصوصيين عدالتنا وحاوا سيدن كيل لها إيال واي مارت وحن لين هاي فاطمة إبراهيم هاي ده سلطان كي يواسين تيس شغلات واحدة ما تايده ما دمانين كوم مجوكت وحن ربنا يواسينت إيه سلطانك إن نيروبي إيمانه أرنتان عن هوس أدادهن تشمن تشي مارت معنا له عد معنا الله نقولنا وإسكتم بيسه ووركوا أسكت وبحار